burburkii dowladnimada Soomaaliya kadib waxaa shirkado iyo shakhsiyaad kaleba ay u jeesteen jarista dhirta si ay uga macaashaan nololna uga soo saartaan. dadka horraantii sagaashameeyada ka qayb galay jarista dhirta iyo shidista dhuxusha waxaa ka mid ah Cali Maxamed Cali Akhwaan oo ku nool magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag. waxa weeye waxaan markii hore waxaan ka shaqayn jiray waxaan ahaa dadkii maaragtay kambaniyadii dhuxusha gubi jiray ma garatay ka bacdi xilliyadii loo ololeynayay in la joojiyo dhuxusha qofkii ugu horeeyay oo maaragtay waxaan ahaa la beegsado ama dhuxushii ugu horeeyay oo la gubo baa waxay noqotay taydii nasiib u heshay. waxaad ii sheegtaa goorma aad u bilowday inaad dhuxusha gubto sanadkee bay ahayd ma xusuutaa? waan xusuustaa waxaan bilaabay 94 maalintiiba imise baabuur baad soo jari jirtay ama imise geed baad goyn jirtay? wallahi hadda ka hor mar baan qiimeyn sameeyey halkii maalin inta geedaa nafta ka qaado iscelcelin horta marka ugu horeysa Allah iga cafiyo waxaan aad uga qoomamayo adigu iscelcelin waxa weeye maalintii waxaa nafta ka qaadi jiray 50 geed meelaha. runtii waxa weeye waa waxaan aad hadda markaad wareysanaysid aad aan uga qoomamayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye nina iga dhaafo arrinta noocaas mana jecli wallahi waa ila soo gashay inaan ka sheekayo ma jecli waa arrin mugdiya oo aad ii dhibta. Cali Maxamed Cali waxa uu jarista dhirta soo waday tan iyo sanadkii 2008 isagoo noqday ganacsade muuqda oo ay la soo xiriiraan shirkadaha dhuxusha dhoofiya. waa laba arrimood baan ku samayn jiray waana dhoofin jiray oo imaaraadkan geyn jirnay oo dad qandaraaslayaal naga sii iibsan jiray mar aan u sii dhiiban jirnay waa jirtay oo waxa weeyaan oo anigu maadaama waxa weeye dadka ugu horeeyay oo waxaan maaragtay bilaabayahay shirkadaha igu xirmay qandaraas baan ka qaadan jiray inaan dhuxusha mareero iyo meelaha geeyo oo qaymo ugu geeyo kabacdi inaan 2 kun oo kiishiyo adigu wax isaga sii dhiibto oo waxa weeye aan kharashkooda la baxo layga soo iibiyo imaaraadka markay naga joogsatay waxaan samayn jiray waxaan lahaa dhul waxa weeyaan nin ilaa gaalkacyo galdago bursaalax dhulkaasaan geyn jiray garaacad meelahaasaan geyn jiray. hase yeeshee niyadda Cali Maxamed Cali ee jarista dhirta waa isbedeshay intaasi wixii ka dambeeyey waxaana uu jeestay inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka. waxa uu iga warramay isbedelkaasi ku yimid. waxaan u jeestay horta hotel baan furay hotelka wii kala kici waayey marka waxaan u bareeray maxaan ku idhaahdo inaan gaari gacan ku shaqeeyo oo 10 jirikaan inaan maaragtay biyo ku dhaamiyo noloshayda aan ku maareeyo hagbad aan ka galo lacag aan halkaa ka ururiyo. ficlan gaarigii wuxuu isu bedelay inaan gaari socdo oo motoorkiisa socda oo motoor ku soconaya inaan iibsado. waxaan ku bedelay marka waxa weeye 12 jirikaan baan wadi jiray marka hore oo gacanta lagu riixo waxaan isu bedelay macmiishayda inaan ku gaarsiiso 45 jirikaan intaan saaro inaan waxa weeye macmiishii aan ku gaarsiiyo inaan jirikaamo maaragtay biyo ugu geeyo iyo gaari misana waxaan u bedelay inaan haan saaro iyo bam biyaha ka tuura oo waxa weeyaan oo qaadistii nidaam casri baan u bedelay. gaarigaasi marka wuxuu keenay gaari kale inuu yeesho oo waxa weeye baabuur kale aan yeesho alxamdulillah waxa weeyaan lagama sheekayn karo. marka hadda baabuur baad ku shaqaysataa oo biyaad iibisaa saas miya? shirkad waxaan leeyahay nadaafadeed magaalada Dhahar baan ka shaqeeyay insha Allah gobollo kale inaan gaarsiiyana waan ku rajo weynahay. waxaan kaloo ka shaqeeyaa xashiishka kaliya ma guree waxaan la dagaalamaa waxa weeyaan bacda dhirta bahalkaysa. waxaan kaloo sameeyaa inaan magaalada hadda dhirta ugu badan oo ku jirta waxa weeye waana geliyey hay'adaha keento marka ugu horeysa waxa weeyaan ha geliso laakiin dhir badan aniga aan geliyana way jirtaa laakiin dhirtaas qandaraaska markuu ka dhamaaday inaan dhirta ka shaqeeyo qandaraas baan ku qaatay waa la jeclaysiiyay dhirtii aan la dagaalami jiray marka waxa weeyaan dhirtaas baan beeraa. waxaan kale u doonaa hadda ugaarta iyo dhirta jarideeda inaan dhirta la jarin meel waxa weeyaan dhirta lagu xanaanayana waan leeyahay waxa weeyaan nursery aan dhirta maaragtay aan ku xanaanayo.
cali maxamed cali akhwaan waxa uu galka baarista uga sheekeeyey dhibaatada jarista dhirta ay u geysatay biyada gaar ahaan tan uu isagu mas-uulka ka ahaa ee ka dhacday deegaanka uu ku nool yahay. dhirtii waxa weeye arladii roob la-aan baa ka dhacday, dhul garoona dhulka isu bedeshay oo waxaan ku idhaha dabayli ka dhacaan oo waxa weeyaan dhirtu dhir kale oo dhirta yar bay dugsi u ahaan jirtay in dhulkii waxa weeyaan qaybtii ay faaruqdo in dhul maxaan ku idhaha hadda maaragtay dhul aan dhir lahaan jirin inay dhirta kusoo noqoto xataa waa la arkaa ma ogtahay, laakiin dhulkii in badan waa faaruq oo waxa weeye cimiladii oo dhan baa isbedeshay mafaataad oo dhirtanna misna dee makhluuq baa ku hoos noolaayo waxa weeye kayn bay ahayd hadda duurjoogtii waxa weeyaan dhulka alla ku manaystay waa waxa weeyaan dee hadday kaymihii waayaan waxa weye isbedel baa ku dhacay. duurjoogta qayb baa kaymaha ku nool aan bannaan ku noolayn, marka isbedelkaasi wuu dhacay runtii waxa weeyaan waa aad baa waxa weeye isbedelkaa loo dareemaa xanuunkaas ma garat. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Oktoobar sanadkii 2022 shaaciyey in hadafka dawladdiisu ay tahay inay beerto 10 milyan oo geed guud ahaan waddanka, isagoo khudbad jeedinaya markii uu beeraya geedkii ugu horreeyey munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho. waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka. daaraha iyo dadka leema waxa naga burburay, bay'adina waa naga burburtay, midaan annagu si ula kaca u burburinay iyo mid xanaano la'aan iyo daryeel la'aan u burburtay intaba. sidaas daraaddeed bay'ada oo xumaatana waa aragnay, cawaaqibka ka dhalanayo iyo waxyaabaha ka imaanayo waan aragnay. waxaan u baahannahay marka isbedelada aan suubinayna inaan ka mid dhigno in maxaan ku yidhaahdaay cimilada iyo duruufaha adag ee keena roob yarida in aan la tacaalno. waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yidhahdaa duruufaha ay keento roob yaridu ay keento waxaa ka mid ah yani waxyaabaha jira. waxaan u baahannahay marka ilaahay subxaanahu watacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da'a iyo inaanu di'inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa, laakiin dadaal inaan la nimaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmi ana loogu sheegay inaan samayno waayo. haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno, annay noo sheegtay haddii geedaha la jara in roobku nagu yaraanayo, marka inaan aan ka fikirno waayo. marka inaan geeduhu nagu yaraan badino, geedahana inaan annagu abuurno waaye, joojinaana muxuu ahay jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojino waayo. meelaan geeda lahayn neef caanala kama yimaado, meelaan geeda lahayn roobka ka sokow iyo waxyaabahaas waxyaabo kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helin. geedahan badinayna Soomaaliya waxaa hadaf noo ah Soomaaliya guud ahaan in aan 10 milyan oo geed inaan Soomaaliya ku beerno. magaalada Muqdisho waa meeshay ka bilaabanayso. haddii magaalada Muqdisho ay ka bilaabanayso si weyn waa inay magaalada Muqdisho uga bilaabataa, markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ay ku faaran. waxaan rabaa duqi magaaladana waa joogaa, wasiiraddii muxuu ahay bay'ada waa joogtaa. waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100,000 oo geed in la beeraan rabnaa. haddaba halkee ayuu ku dambeeyey mashruucaasi dhirbeerista ee dowladda federaalku ay ku dhawaaqday? su-aashaasi waxaan hordhigay Dr. Bedel Axmed Xasan, la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, arrimaha dhirta, nolosha deegaanka iyo duurjoogta. madaxweynuhu wasaaradda bishii Agosto 2022 waa la sameeyey, 21 Oktoobar 2022 ayuu ku dhawaaqay hindisaha Soomaaliya cagaaran. isla markaana wuxuu ku dhawaaqay in nationwide si guud dalka Soomaaliya in 10 milyan oo geed lagu abuuro, gobolka Banaadir magaalada Muqdishona in lagu beero 100,000 oo geed. sidaas uu ahaa barnaamijkaas meel fiican buu marayaa. markiiba madaxweynuhu baa qaajiyay wasaaradda 2 bilood bay jirtay, wax baadjadana haba yaraatay inta doona ha dhamaadee ma ayn lahayn. waanu ka fadhiisanay barnaamijkaas 3 qaybood baan u kala saarnay. qaybta koobaad waxaan ka dhignay sidii dhaqaalihii barnaamijka lagu horumarin lahaa ee lagu dhaqaajin lahaa sidii aan ku keeni lahayn aan falankeed galno oo baaqa madaxweynaha loo hirgelin lahaa. qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii bulshada wacyigelin iyo tababar loogu samayn lahaa si uunan barnaamijka u noqonin
wax maaragtay dusha dadka lagaga keenayo oo dowladdu leedahay oo madaxweynuhu leeyahay oo dadku ayna qayb ka ahayn si uuna u noqonin si bulshadii in la wacyigeliyo tababarana loo sameeyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu ilaa iyo bulshada rayidka ilaa iyo private sectorka dad wixigaa in la isku xidho iyo qayb saddexaad oo ahayd fulintii kaabayaashii barnaamijka lagu fulin lahaa hadday tahay xarumihii cilmi baarista xarumihii bacriminta dhirta xarumihii kaydka abuurka seed centeradii training centeradii marka tan u dambayso oo aan gadaal ka sheego wixigaa waxay laagu baahan marka taa horaan u dhaqan gelinay oo Soomaaliya markiiba waxaanu ku beernay bishii November Great Greenwald Initiative for Africa oo ah barnaamij Pan African flagship ah oo loogu talagalay saxaraha waqooyiga Afrika ka soo degaya sub-Sahara Afrika ku soo degaya in lagu xiro ka soo bilaamaya Niger ku dhamaanaya ilaa iyo Djibouti barnaamijka waan soo dejinay bishii July sanadkii 2023 yaa si official ah wadanka loogu daafuray waxaa kale oo aan barnaamij qayb ka noqonay oo almost 5 bilyan hektar oo dhul inaanu dhiraynayno aanu ku rajaynay wuxuu ahaa AFR 100 oo ah iyadana barnaamij kale oo African Union uu leeyahay oo dhigaya in 100 milyan oo hektar in lagu oo kaymo oo burburay in dib loogu soo nooleeyo marka barnaamijyadaas waa barnaamijyo salka ku haya qorshaha African Union strategy-ga ajendayaasha 2063 the Africa we want qaaradda Africa ee la doonayo 2063 nooca ay u ekaanayso marka madaxweynuhu wixigaas oo dhan informationkaas oo ka duulayo barnaamijka ku dhawaaqay marka wadanka waanu waxaynay mar kale madaxweynaha waa ku soo noqonay oo waxaan ka wada hadalay inaan dallad maran ama dambiil maran inaan cidna la teekin qaranku inuu wax ku shubo oo isagu dolarta meesha wax dowladda Soomaaliya wax ku wahayd marka lacag 20 milyan ah oo loogu talagalay adaptation fundka wadanka la qabsiga isbedelka cimilada loogu talagalay oo guud oo wax Soomaaliya u gaar ah caalamka oo dhan lacag ka dhaxeeya oo ilaa 100 bilyan sanadkii ah Soomaaliya inay waxba ka heli jirto yaa lacagta loo qoondeeyay barnaamijka waxaan rajaynaynaa haddaan mashruuca gabagabadiisa gacanta ku haynayo inuu bisha January February sanadka soo socda uu bilowdaan rajaynaynaa lacagtaana marka hawsha halkaa waa ka dhaqaajinay dowladda ay wixigaas waan toojinay xafiisyada haddaan furaynaa hadduu alla idmo xagga dhirbeerista wadanku wax neesa center kuma naaleen gobolka Banaadirna male annana ma naan lahayn marka shakarooni ama gabdha karooni bistaan doona aan iraahne ayaanu sameynay inaanu wax isu keenay ilaa 50 kun oo geed baan gobolka Banaadir ku abuurnay 3 qaybood baan u qaybinay dhirtaas qaybta koowaad waxaan focus garaynay public facilities sida wasaaradaha oo kale compound-yadooda qaar 300 oo geed lagu abuuray qaar 200 oo geed lagu abuuray follow up-na waan ku haynaa kuwaas successful bay noqdeen qaybta labaadna waxaan u qaybinay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir yaan u qaybinay qaybta saddexaad baa dhibaato ka timid haruna wadanka waa ka warhaysaa in uu barakacayaal badan oo miyiga ka soo gureynay yimaadeen dadkii kaliya ma dunidana way soo qaxday oo geeli iyo arigii iyo lo'dii magaalada Muqdisho ay joogaan wadadan ka soo leexata number 4 garoonka gashay hotel Jazeera iyo Hormarka afkeeda checkpoint-ga ilaa iyo iridda laga galay garoonka inta u dhaxaysa waa 2 saad labadaas saad dhaxdooda waxaan ku guray 65 geed oo waxaan gelinay qumba ayaa loo gelinay disaankuna wuxuu ahaa geedaha qumbaha dhaxdooda 2 geed walba waxaan u maleynayaa taqriiban 5 mitir ma aqaan 10 mitir baa u dhaxaysa aan malay 10 mitirna inaan u baxayna ahay wiilashii iyo gabdhihii wasaaraddu markay soo dhameeyeen 25 daqiiqo kadib hatta qumbaha sal yar oo kuusan buu wataa oo qumbihii atalaalku hatta qumbihii arigu waa la bax hal geed ma taagnin hadda siligu ku xirta hataa oo kii magaaladana waa saa geeliga joogo oo siligna cilmiga qoorta korkeeda keenay marka xagga publica dhibaatadaas oo xoolahaas ay ku hayaan baa wadooyinka ka taagan laakiin barnaamijka madaxweynuhu ma ahayn wax wasaaradda kaliya waajib ee barnaamij qaran buu ahaa shacabka oo dhan la gaarsiisan Cusmaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknoolajiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in biyadu ay soo kabanayso mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo jaristii dhirta oo yaraatay aawadeed tusaalaha ugu wanaagsan oo la arki karo waxaa ka mid ah
dhulkii dhuxusha laga jari jiray dhuxusha laga shidi jiray marka aad tagto oo haddana laga joojiyey waxaad arkaysaa in dhir isku da' waad isleedahay mar bay wada koreen waa aad u badan ay aad soo baxaysaa khaasatan geedkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jari jiray goloolka ahaa meelaha soolka ah oo dhulkan soolka inta badan waxaa la yidhahdaa dhul daaqsimeedkan ilaa galbeedka bari ilaa iyo tog dheer taxan baa soo la yidhaahdaa ma aha soolkan gobolka ah oo Soomaalidu gobolka u taqaano marka waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aad u badatay khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aad u soo maaragtay gabaad heshay waayo haddii aanay dhirtana soo badan ma hesheen waxaa kaloo iyadana tusaale fiican noqon karaa inta shirkadood oo hadda ka shaqeeya gaaska oo customerka ay haystaan oo kumayaalka ahi kan ugu yari 2 geed ama 3 geed buu bishii isticmaali jiray inuu dhiganta marka de intaasuna waa badbaaday waa gartay dhinaca markaan ka hadalo dowladda federaalka ama kuwa heer gobolba ama ilaa heer degaan waxay qaban kareen oo aysan qabanin hadday noqon lahayd dhinaca sharciyadda ma jirta ama ilaalinta deegaanka dhinacaas maxaad ka dhihi lahayd horta maamul goboleed kasta iyo maxaa la yidhahdaa tan dhexeba dokumentiyo qurqurux badan oo markaad akhrido yaa lagaga hadlaa dhinaca deegaanka iyo ilaalintiisaba laakiin waxaa arrimahay aad uga baaqdeen waxaa ka mid ah arrinta deegaanka oo kale horta runtii kuma fiicna in la siyaasadayo oo xataa haddii maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedada aan xiriirka lahayn in arrinta deegaanku midayso ay yidhaahdaan arrimaheena kale meel hayna u yaaleen laakiin bal arrimahan deegaanku waa arrin ina wada taabanayso oo matalan haddii meel roob ka doo dadkii way isu guurayaa daaqii waa la wada leeyahay biyihii waa la wada leeyahay taas halka inoo dhiga laakiin teena kale aynu bal wadahadalkeeda wadno warbixinta 2 sanaba mar la daabaco ee dowladuhu ay ka qoraan xaaladda cimilada iyo deegaanka wadamada oo ay Soomaaliya daabacday bishii Abriil ee sanadkii hore waxay kaga hadashay caqabadaha dowladda ka haysta qaadista tallaabooyinka wax ka taraya hagaajinta xaaladaha cimilada iyo deegaanka caqabadahaasi waxaa ka mid ah siyaasad iyo sharci dejin daciif ah oo aan dhammaystirnayn taasoo lagu maarayn lahaa arrimaha bii'ada iyo hay-adaha dawliga ah ee muhiimka u ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo ay haysato dhaqaale la'aan waxaa kaloo lagu sheegay warbixintaasi in aqoonta isbeddelka cimilada ee waddanka ay yar tahay gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka iyo hanaankii la socodka iyo ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada oo maqan iyo amni darrada ka jirta meelo ka mid ah waddanka waxaa kaloo ay Soomaaliya sheegtay inay u baahan tahay in laga gargaaro tallaabooyinkii lagu yareyn lahaa uumigaasi gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha teknolojiyada iyo dhisidda karaanka hay-adaha qaabilsan wax ka beddelka isbeddelka cimilada oo ku kacaysa ilaa $7 bilyan sida ay sheegtay warbixintu barnaamijkii galka baarista oo aan kaga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo saamaynta Soomaaliyana waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono qayb kale oo ka mid ah mawduucan isbeddelka cimilada iyo Soomaaliyana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo